barasaabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa maanta xilalka u kala wareejiyay taliyihii hore qaybta booliska gobolka Saraar Jamaal Cabdi Jaamac iyo ku-xigeenkiisa Shiine Cali Guuleed iyo taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Saraar Mursal Xaaji Warsame iyo ku-xigeenkiisa Cali Axmed Shire. ugu horeynba waxa goobtaasi ka hadlay taliyihii hore qaybta booliska gobolka Saraar Jamaal Cabdi Jaamac oo ku dheeraaday marxaladihii kala duwan ee uu soo maray taliska ciidanka booliska gobolka Saraar isagoo gaarina shaqeynayo gaarina fadhiyo gobolka Saraar ayaa la soo bedelay hasaaseen dadku kala nasiib badan yihiin nasiibkaygu waxa ii noqday gaadiidka halka taban qaybta inaan ku soo kordhiyo waa ilaahay mahadi dhulka Saraar uu mas'uulka ka yahay ama ka kooban yahay waa dhul aad u balaaran halka wuxuu ka gaaraa ilaa 180 kilomitir halka ka gaaraa waa gobolka ugu weyn gobolada marka laga eego Ceerigaabo laga daayo dhulka nawaaxiga leh ayu ciidankaas tiradeedu waxay yahay 128 askar. sidoo kale waxa dhankiisa goobtaasi ka hadlay taliyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay gobolkani Mursal Xaaji Warsame oo halkaasi kaga codsaday shacabka gobolkani Saraar intii hore ciidanka la hadlayay laakiin imka halkan media bulshada kala hadlay bulshada gobolka Saraar waxaan oranayaa booliisku waxa weeye hadaan gacan la siin oo gacan la siin booliisku waxa ma qaban karo booliis waxaan leeyahay gacanta bulshada weynaan bulshada gobolka Saraar waxaan ka rabaa gacantii inaad gacan buuxday ku siisaan nabadgelyada cidna uga hamran mayno nabadgelyada meeshii nabadgelyo darra joogta far waxaan gacan biraan ku qabanayna ribaahan ku dhufanayna run baan ku idin sheegay laakiin maxaan ka rabaa gacanta kood waxaan ka rabaa bulshada ka rabaa taa bulshadu hadii aanay bulshadu waa inay la shaqeysaa bulshadu waa saaxiibka dadweynaha bulshada iyo booliisku isku xidhiyo waa inay taas halkaas qodobka inta sidii bulshada gobolka saaxilba gacan buuxday gasay aniga runtii waxay la shaqeyn jiray saaxil markaan joogay bulshada dadweynaha kala duwan bulshada kala duwan bay la shaqeyn jiray haday tahay ganacsatada bulshada noocyada kala duwan bay la shaqeyn jiray. dhanka kale waxa goobtaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Nuur Ile Ducaale iyo barasaabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax waxayna si rasmi xilalka u kala wareejiyeen labadaasi taliye ee loo soo magacaabay taliska qaybta booliska gobolka Saraar. midna weeyaane waa sunnada kulli in la kala bedelo waxa ku jirta sunnaha dawladnimo waxaan aad iyo aad aan u sii sagootiyeynaa gaashaan la sare Jamaal oo de muddo soo shaqeynay gobolka laba goor ku soo noqday waanu kaga mahadcelinaa intaan soo wada shaqeynay waxaan soo dhaweynayaa taliyaha cusub oo isaguna nasiib yeeshay iyo ku-xigeenkiisa taliyaha cusub waa soo dhaweynaa Mursal aad baan u soo dhaweynaa waxaan sii sagootiyeynaa gaashaan la sare Jamaal Cabdi Jaamac iyo Shiine oo si wanaagsan iyaguna muddadii aan halkan joogay إلى شقيني رنتي وعبد الرحمن فيصل في ملاك تلفزيون كعالمي Bulsho TV مقالة عينة بحرنته قبل كسرار.